السلام عليكم soo dhawaada khiyaarta waqti dheer kadib maanta waxaan qaadan doonaa phrasal verbs in badan waan maqalnaa horta marka hore maxay yihiin phrasal verb hadaa maqashid waxa weeyaan waa laba erey yacni mid ficil ah oo verb ah iyo erey kale ha noqdo yacni preposition ama adverb oo la isku keenay markaasay erey walba micnuu leeyahay laakiin marka la isku keeno ay phrasal verb noqdaan hal micno oo buuxo ayay yeelanayaan marka maanta halkan waxaa diyaar inoogu ah sida inoo muuqata 12 phrasal verbs oo maaragtay loogu talagalay friendships yacni asxaabta ay isticmaalaan marka soo dhawaada midda koowaad waxay tahay midka koowaad waxa weeyaan hang out yacni waa hang iyo out la isu keenay hang out macnaheedu waxay tahay spend time casually with friends yacni waqti aad la qaadanaysid asxaabta waqti aad la qaadanaysid asxaabta yacni banaanka aad u baxaysaan waa wada soconaysaan waad soo wada cashaynaysaan hang out ayaa la yiraahdaa midka labaad waxa weeyaan get together okay get together waxa weeyaan meet up friends yacni for a social occasion saaxiibada markaad la kulantid yacni meelo aad isugu yimaadaan social occasions waxyaabaha meelaha xafladaha camal ama ciidaha camal la isugu yimaado kulankaas ayaa waxaa la yidhahdaa get together mid saddexaad bail out macnaheedu waxay tahay yacni waxaa loo isticmaalaa yacni macnaheedu waxay tahay cancel plans or leave unexpectedly yacni qorshayaal inaad kansashid yacni asxaabta waxaa isku ogeedeen inaad duhuradii meel aad isku raacdaan si lama filaan ah ayaad waxaa tiri yacni ma socdi arrin ay usoo baxday ma socdi marka waxaa la yidhahdaa bail out cancel plans or leave unexpectedly mid afraad waxa weeyaan catch up macnaheedu waxay tahay share news or updates with a friend after a period yani apart saaxiibka oo aad maaragtay aad war yani wax cusub la wadaagtid yani idinkoo in muddo kala maqnay okay in muddo kala maqnaydeen waad isku imaadeen markaad la wadaagayso warkaa yani isku imaanshaha iyo warkaa la wadaagayso waxaa la yidhahdaa catch up ayaa la yidhahdaa open up ayadan waxay tahay waxaa loo isticmaalaa yani macnaheedu waxay tahay share personal thoughts waxyaabo kugu saabsan adiga yani shakhsiyan personal kuu ah markaad qof la wadaagaysid or feelings with a friend yani markaad saaxiibka saad dareemaysid iyo adiga waxyaabaha shakhsi ahaantada kugu saabsan markaad la wadaagaysid ayaa waxaa la yidhahdaa open up ayaa loo isticmaalaa okay backup ayadan waxaa loo isticmaalaa support a friend in their decision or actions markaad saaxiibka aad ka caawinaysid go-aamadooda ama ficiladooda okay arrimahay sameynayaan go-aamadooda ama ficiladooda markaad ka caawinaysid ayaa waxaa la yidhahdaa waxaa loo isticmaalaa backup cheer up ayadan waxaa loo isticmaalaa help a friend feel better when they are sad markaad saaxiibka yani aad ka caawinaysid inuu yani wanaag dareemo markuu murugsan yahay tusaalahaan saaxiibka murugsana waxaa aad u imaaday sheeko horaa ugu sheekaysay waxyaaba ku farxa u sheegtay okay marka murugadii way ka tegaysaa waxaa la yidhahdaa marka waxaa loo isticmaalaa cheer up midka saddexaad waxaa weeyaan make up yani ayadan waxaa loo isticmaalaa resolve a disagreement and restore yani friendship marka aad khilaaf aad xalisid oodna soo celisid saaxiibtinimada ayaa waxaa loo isticmaalaa ereyga make up khilaaf dhexdiina ayaad xalisay yani xalinta iyo isku soo noqoshada waxaa loo isticmaalaa ereyga make up 9 stick together waxaa loo isticmaalaa iyadana yani macnaheedu waxay tahay stay loyal and supportive during tough times yani inaad daacad ahaatid oo qofkan aad caawisid qofka aad wada socotaan saaxiibka ah yani xilliyada adag okay marka waxaa loo isticmaalayaa stick together labadan qof yani hadday saas sameeyeen they stick together reach out ayadan waxaa weeyaan contact a friend to offer support or connect markaad saaxiibkaa la xiriidhid si aad u caawisid
ama iska xiriir caadi ah yani saas kusoo maarataanay wadajir u haataan aad oo la xiriidhid ayaa waxaa la yidhahdaa reach out. Yani reach out qof markaad adiga aad la hadashid aad hadalka u bilowdeed ama caawi ama idinka ahaato xiriir oo keliya yani waxaa loo isticmaalaa reach out. 11 drop iyo by marka isku daro yani waxaa weeyaan waa markaad saaxiibkaa soo booqatid si lama filaanas. Visit a friend informally. break up ayadana waxaa weeyaan yani waxaa loo isticmaalayaa kala tag ahaan. End a romantic relationship but may still remain friends. Yani markaas yani xiriir jecel yani halkaa ku dhamaado okay madaxa laga jaro ayaa la yiraahdaa ayaa loo isticmaalaa ereyga break up. kan waxaa weeye Soomaalida aad bay u yaqaanaan inta badan dadka aad bay u isticmaalaan okay. End a romantic relationship but may still remain friends. Yani qofka wali ex-kaaga ama ex-taada way ahaan kartaa laakiin waxaa weeyaan waad kala tagteen okay waa kala dhamaateen. marka inaa fahanteen arjayna wixii su'aalaha qaybta commentiga aad inooga reebi kartaan. Assalaamu calaykum waraxmatullah.